بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا جانك مالمها waxaan idin soo gudbinaynaa qiso aad u xiiso badan isla markaana ay ku sugan tahay xigmad aad u weyn. qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsan. qisadani waxay dhaxmartay laba wiil oo saaxiibo ah oo ay nafta u dhaxayso. labadan wiil ayaa waxay saaxiibo ahaayeen muddo aad u dheer, hase yeeshee waxaa soo kala dhaxgalay shaydaan wuxuuna baabi'iyey xiriirkii wanaagsanaa ee u dhaxeeyay labadooda. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhaxmartay labadan wiil dood aad u weyn taasoo gaarsiisay inay ku kala tagaan saaxiibtinimadiina halka ayay ku baaba'day. muddo dheer kadib labadii wiil mid ka mid ah ayaa waxaa qabsatay duruuf aad u adag, wuxuuna u baahday dhaqaalo. meel weliba ayuu tegay, hase yeeshee ma uusan soo helin ruux la xaliyay arrintiisa. ugu dambeyntii wuxuu ka maarmi waayay saaxiibkiisa oo muddo dheer ay kala maqnaayeen. wax khiyaar ahni ma uusan haysan aan ka ahayn inuu saaxiibkiisa dantiisa u sheegto. isaga oo ka warqaba inaysan isku wanaagsaneen ayuu u tegay, wuxuuna ku yidhi, maanta waan kuu imid, duruuf ayaa hayso, waxaana kaa soo doontay lacag aan ku shaqaysto. saaxiibkiisa wuxuu yidhi si ay kalsooni ku jirto, waxaad gashaa qolkayga, waxaadna furtaa armaajadeeda, wax allaale wixii aad doonto lacaga ka soo qaado meeshaas. wiilkii wuxuu galay qolka, wuxuuna soo qaatay lacagtii uu u baahnaa. waxaase cajiib ah, ma uusan u sheegin inta ay tahay lacagta uu soo qaatay, balse waa uu iska soo tegay. muddo kadib wiilkii wuxuu helay lacag aad u fara badan, wuxuuna soo aaday saaxiibkiis si uu lacagtii deynteeda ugu keeno. markii uu yimid ayuu wuxuu ku yidhi, waxaan ku wada lacagtii aad igu lahayd. wuxuu yidhi, waxaad dhigtaa meeshii aad ka soo qaaday. ma ogaanin lacagta uu ka qaatay saaxiibkiis inta ay ahayd. markii uu u keenana ma uusan weydiiyey lacagta intay la ekeed. qisadan waxaynu ka faa'iidaynaa tacaamulka wanaagsan qiimaha uu leeyahay. ruux aad isku xun tihiin naftaada ma ku siin lahayd inaad daruuftaada u sheegato. haddiise uu kuu yimaado ruux ay idin dhex martay dhibaato, sidee naftaada kuu siin lahayd inaad iska ilowdo xumaantii idin dhex martay, isla markaana weji wanaagsan aad kula tacaamuli lahayd. waa arrin u baahan sabar iyo dulqaad wanaagsan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh, gamaleelkan riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.